السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو وناكسن داود هل كان يقص عتان وناق قيسك آلا ونقبرتين أرمحي سلا إيه برنامج شخصي قلياه سقف كيغو وقالي أقرب وقديد قديس عليكم سو نقدو ناكسن هل كان يداونيسين وناق قيسك آلا وقبرتين برنامج شخصي سلا هايغمو قصرين دوخو مش كمان إذن waxaa kamid ah wiil Soomaaliyeed oo jecel dartiisa u cabay sunta dooliga kani waa Nimcaan Xuseen waa wiil dhalinyaro oo xalay sun ku cabay caasimadda Muqdisho kadib markii loo diiday gabar uu jeclaa dib inta barnaamijka sii gelin waxaan ka codsanayaa hada janaalka cusub tahay inaad subscribe noo saarto ana la wadaagto asxaabtaada baryahan waxaa kusoo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay cabaan sun maalin dhaxaas ay ahayd mar gabar gurceel ay ku cabtay sun kadib markii loo diiday wiil ay jecleed waa kan Nimcaan Xuseen oo u waramayo Maxamed Ciise Koona oo ku booqday isbitaalkii lagu dabiibayay Nimcaan Xuseen oo sunta jiirka u cabay jecelkiisa qofkaygu waa qaali lamaanayaasha jecel wadaagga ah ee aan wali aqal gelin halis badan ayay u bareeraan mararka qaar qolkan ku isticmaalay musqusha aad isdhahay macnaha musqusha intaanaba gaarin inta musqusha iridii aan maraa mir ugu dambeysay baan waxa soo isgaatay isticmaashay maxay ahaayeen sunta jiirka Nimcaan Xuseen Jimcaale waxa uu cabay sunta dooliga kadib markii loo diiday gabar uu jeclaa naftiisa oo halis ku sugan ayaa la geeyay xalay isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho go'aankeyga isticmaalay waxa waay inaan macnaha jaceylkeyga inaan helo iyo inaan aniga nafteeda u jara maxaa ka dhaxeeya qofkan adduunka ugu jeclaa di horteeda macnaha lagu canaadayo dameerku ku siimayo waxna aad qaba karin marka waxaad ka badiyaysaa sameynaysaa ayadu marka ku jeceshaa sida adigu jecleed maadaama isku diraysan si kaliya leh arinta ku ay jeceshaa 100% Nimcaan oo sunta dooliga u cabay gabar uu jeclaa awlid ayaa waxa la keenay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka Kalkaal qaybta sad u jeedaan gargaarka degdega dhabarkiisa ay ku taalaa xaaladiisu way fiican tahay Dr. Maxamuud Cabdi Nuur oo ah dhakhtarka kiiska Nimcaan gacanta ku hayay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda ee Nimcaan hadda ay fiican tahay lana rajeynayo in uu dib ugu laabto noloshiisii caadiga ahayd iyo qoyskiisii maadaama ay u sameeyeen baxnaano Nimcaan markii la keenayay horta wuxuu ku jiray xaalad oo wareersanaan laakiin ma gaarsiisanin heer miir daboolan waqtigu daa waxa soo cabay iyo waqtiga nolol keenay adiga oo badan saacad amal u dhaxaysay sidoo noo sheegay markii waxoogaa miirkiis toos noqdana wuxuu noo sheegay inuu wax yar hal mar ka baday laba jeerna oo ma tagay soo marka daawadii ama suntii jirkiisa saaid uma saameyn guud mees ku yaalan xaaladii naxdintii oo ka qaaday suntii oo cabayay iyo wixii oo asaga dham dabaqsanaan gelisay maan wax miir daboolan saaid oo suntiisa jirkiisa saameyn guud saaid isku yaal uma yaalan markii nolol keenay waa fiirinay xaaladiisa qiimeynay waa wax kasta laga cabiray dhiigiisa sokortiisa kulli wax kasta waa cabirnay ka bacda xaaladii gargaarka ay markaas faleembooyin iyo wax in la siiyo aan isla markii laga gaaray ka bacda adiga 30 daqiiqo ka bacdi xaaladiisa caadi ah oo hadlay duruufo badan oo ka haystay Nimcaan dhanka ehelkiisa iyo qaraabada gabadha uu jecel yahay ayuu sheegay inay ku kaliftay inuu naftiisa gooyo sidaasna uu cabay sunta dooliga wax walba waxay ka furantaa macnaha qofka ayada xageeda Soomaaliya ani wax walba diyaaran la ahay macnaha ayada xageeda macnaha waxaan ka cabsi qabay dhanka waalidka way waalidka ayaga isqalaabsan qaarna way ogolay qaarna way diidanayay anigana macnaha wax garaba kama haysto dadka aniga dhashay كلمات أنت ساكت. ما فكرت مرة أنا مفترض بيسو إن قطر ديني يمد بالشباب إلى العطاف. ديني ما بقول شيء تمام هذا الدين هذا قف هذه مروجة سنة تعالك مروجة سنة هاي الدين ما بقول سو جلس وقلبي كذا سمع. مدوينك ودن بيه مقدسية قبل هذا دلك وحكوسه بدنا يد لأن يرد النفط وده لسه أوجليا الرماه جعلك.